aad iyo aad baa u mahadsantay aad iyo aadna ugu faraxsanahay su-aashan la xiriirta guusha gabadha ilhaan guushu maaha guul shakhsiya maaha guul xataa gobol maaha mid mandaqadeed maaha waa guul u soo hoyatay guud ahaan qaaradda afrika gaar ahaanna soomaaliya u soo hoyatay gaar ahaanna u sii hoyatay dadka ku nool puntland deegaanadan hadda aan joognaa waxa weeye waa guul taariikhiya waa gabadhii ugu horraysay oo iyadoo weliba dacyar ka mid noqotay aqalka sare ee dowladda maraykanka horena uga mid ahayd aqalka stateka minnesota ama statekaas minnesota iyo St. Paul wax la sheegi kara maaha oo u hambalyeynayna arrintan guusha ay ilhaan gaadhay ma aha guul shakhsi waa guul afrika oo dhan u soo hoyatay gaar ahaan soomaaliya waxaan leenahay hambaliyo guushaan waxaan rajaynaynaa inay noqoto mid mustaqbalka wax u tarta ilaa idinka insha allah khayr baan u rajaynaa waana salaamaynaa ilhaan bismillaahi raxmaani raxiim hambaliyo aad baan ugu hambalyeynayaa ilhaan cumar guushaan taariikhiga ah oo u soo hoysay shacabka soomaaliyeed guud ahaanteed afrika iyo dalka islaamkaba waxaan leeyahay hambalyo waxaan rajaynaynaa Donald Trump in la helo qof hor fariisan kara oo kala hadli kara fikriga khaldan oo ka qabo Soomaalida Mareykanka joogta marka waa gabadhii ugu koowaad oo la helay oo Congress gashay waa hambalyan u leenahay waxaana Soomaaliya u rajaynaynaa insha Allah Ilaahay Kariim inay noqon doonaan in xisbiyada gudoomiyahooda oo ma arki doono mar dhow qof Soomaali ka soo jeedo oo madaxweynaha Mareykanka marka isbiirka ay ku soconayaan dadka reer Mareykan iyo sida ay u dadaalayaan in dadka jooga waxaan leenahay noo soo duceeyay insha Allah Ilaahay Kariim inta dalka joogtana Ilaahay inuu fahamsiiyo sida u dadaalaysan dadkina dibadda jooga oo qaar xildhibaanada yihiin qaar wasiirada yihiin qaar ilaa tukuran gudoomiyaasha internationalka ay yihiin say noogu soo duceeyay insha Allah Kariim wadaniyada guud in anagana gasho bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo Ismaan Xafaar Ismaan Gamuure waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay doorashada loo doortay Ilhaan Cumar golaha Congress-ka ee Mareykanka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtiina waa arrin raali gelisay boqolkiiba boqol in ummadda Soomaaliyeed ummadda islaamka ah ay jago weyn United States of America ay ku yeeshaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana qabaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ilhaan xilka cusub ee loo dhiibay taasoo ay ka mid noqon doonto aqalka dowladda federaalka ee Mareykanka Congress-ka xisbiga dimuqraadiga ah oo ay ku soo baxday guushaas dadka Soomaaliyeed meel kasta ha joogaan magac iyo sharaf bay u tahay waxay ku tusaysaa dadka Soomaaliyeed qaxootiga ah dalka Mareykanka galay opportunity-ga ay heleen waxa weeye mid aan qiyaasi karin